أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan asxaabta ku taxan janaalkeen Ibro Solution kusoo dhawaada mar kale baan duubi doonaa hadduu Alle idmo qaybtii labaad ee imtixaanka carabiga fasalka 8aad qaybtii hore waxaa kusoo marnay waxaa soo aqrinay qaybta koowaad oo ahayd ciwaana nala siiyey ciwaankana soo aqrinay casharkan ciwaankiisa bisa soo aqrinay insha Allah maanta hadduu Allaha awoodi la raali ka noqdo waxaa ka shaqayn doonaa qaybtii labaad qaybtii koowaad khaasatan gabagabada su'aalaha meesha ay ka bilaabanayaan insha Allah su'aasha koowaad yusiibu maradul balhaarsiya wuxuu ku dhacaa cudurkaani oo loo yaqaano balhaarsiya jawaabteeda waxaa waaye B oo ah الرئتين والأعمى سؤال شلوات تظهر عن طريق الملاريا الاضطرابات في الجهاز جوابتي waxaa ba waaye سؤال saddexaad oo bobsiinana si awta u beeqaamino سؤال saddexaad تنتقل الجراثيم المسببة للتسنتريا عن طريق waxay ku faafaan jiin oo ah addubaab su-aasha saddexaad waxaa inagu waajib ah meesha waxaa ka maqan qaslu ka maqan macnaha alif waa macnaha su-aasha afraad jawaabteeda waa alif oo ah qaslun oo ah dhaqid su-aasha shanaad waxuu ku faafaa cudurka loo yaqaano balhaarsiya iyo cudurka malaariyada ah waxay ku faafeen waxaa ka maqan ba waaye jawaabta oo ah kathiiratun min duwali alcaalam ba waaye su-aasha shanaad jawaabteedu waa ba su-aasha lixaad waxyaabaha oo malaariyada ay keento waxaa ka mid ah jawaabteedu waxaa waaye alif oo ah alxumaa su-aasha toddobaad islaamku wuxuu ku booriyey in gacmaha la dhaqo jawaabteedu waxaa waaye jiin oo ah qabla wa bacdi markii qofka jiran lasoo booqanayo soo booqashiis kadib su-aasha sideedaad meelaha ugu badan oo ku faafo waa meelaha kulul cudurkaasi oo meelaha kulul ku faafo waxaa weeyaan su-aasha sideedaad jawaabteedu waxay noqonaysaa jiin oo ah malaria waaye su-aasha sagaalaad maralka oo ku dhaco mindhicirada waxaa gudbiya tuqsiga gudbiyo maralkaasi waxaa loo yaqaanaa su-aasha sagaalaad jawaabteedu waxay noqonaysaa dysenteria alif ah macnaha dysenteriyada waa su-aasha sagaalaad hadda sheegnay su-aasha tobanaad ka hortag waxay ka fiican tahay jiin alcilaaji waa macnaha oo ah su-aasha tobanaad jawaabteedu waxay noqonaysaa jiin oo ah alcilaaji daaweynta su-aasha 11aad waxay ku badan tahay kaneecada biyaha jawaabteedu waxay noqonaysaa ba oo ah arraakidati su-aasha 12aad kelimada mustanqicaad mufradkeeda jiin waaye oo ah mustanqic su-aasha 13aad waxyaalaha uu keeno maralka loo yaqaano balhaarsiga waxaa ka mid ah 13 jawaabteedu waxaa weeyaan waa jiin oo ah faqru dami dhiig yari su-aasha 14aad si aan malaariyada isaga ilaalino waxaa loo baahan yahay inaan sameyno alif waaye oo ah radmul baraki والمستنقعات su-aasha 15aad
Asbaabaha ugu badan oo malalka loo yaqaano balhaarsiga ku imaado waxaa weeyaan jawaabteeda waxay noqonaysaa deel oo ah almaa-ul mulawith. Su-aasha 16aad jeermisyada malaariyada waxay ka soo guuraan qofka dhibaataysan waxayna u soo guuraan qofka fiyow, kadibna qofka fiyow waxaa ku dhacayo jiin oo ah almaral jiro. Su-aasha 17aad Islaamku wuxuu reebay in lagu kaadiyo ama lagu saxroodo biyo fil maa waa biyaha jiin waa fil maa biyaha. Su-aasha 18aad kaneecadu waxay leedahay mici sida cirbada u eg waxayna kusoo dhuuqdaa. Jawaabta waxaa waaye dambu waa al-insaan dambul insaan. Su-aasha 19aad waxyaabaha uu keeno cudurka dysentery la yiraahdo waxaa ka mid ah waxyaalaha uu keeno jiin oo ah al-acyaa shadiid. Su-aasha 20aad malaariyada cudurka loo yaqaano wuxuu ka mid yahay cudurada alif oo ah ashaa'icaad. Raace u dhexeeya midka uu raacay waa raace u dhexeeya asaga iyo midka uu raacay waxaa u dhexeeyo xaraf ka mid ah xuruufta loo yaqaano xuruufta xiriiriyaasha waxaa lagu magacaabaa midkaasi. Jawaabtu waxay noqonaysaa ba oo ah al-cadaf. Su-aasha 22aad markii lagu soo celceliyo lafdul mu'akadka markii lagu soo celceliyo lafdul mu'akadka isim ha ahaado ama ficil ahaado ama xaraf ha ahaado tawkiidkaasi waxaa lagu magacaabaa tawkiidan jiin waay oo ah lafdiyan. Tawkiidan jawaabta waxaa waaye jiin lafdiyan. 23aad waxaa weeyaan calaamada loo adeegsado markii ikhtibaas la sameynayo si loo kala sooco qofka qaariga hadalkiisa iyo qofka qoraaga waxaa loo yaqaanaa calaamadaasi waxaa loo yaqaanaa jiin waaye atansiis loo yaqaana. Su-aasha 24aad ficilka markii loo tiiriyo عند إسناد الفعل المعتل الثاني الأجوف إلى ضمائر الرفع المتحركة maxaa la sameynaa. Jawaabta waxay noqonaysaa jiin oo ah wasdhu. Su-aasha 25aad boobsiinayna. Su-aasha 25aad jawaabteedu waxaa waayeen waa xarafka xiriiriyaha awowga waxaa loo adeegsadaa aljamcu bayna. Jawaabteedu waxay noqonaysaa waa jiin waa micnaha والمعطوف عليه. Su-aasha 26aad jawaabteedu waxaa waaye jiin oo ah alfaasilatu almanquudatu. Su-aasha 27aad jawaabteedu waxaa waaye ba oo ah badalul ijtimaal. Su-aasha 28aad jawaabteedu waxaa waaye jiin oo ah maqsuura aliful maqsuura. Su-aasha 29aad jawaabteedu waxaa weeyaan ba oo ah mamduudatun. Su-aasha 30aad jawaabteedu waxaa weeyaan deel oo ah asamaa. Su-aasha 31aad jawaabteedu waxaa waaye alif oo ah dalabu tacyiin axadu shay-ayn.
Su-aasha 32 jawaabteedu waxaa waaye ba oo ah albedel. Su-aasha 33 jawaabteedu waxaa waaye alfaa'u. Su-aasha waxaan maraynay 33 aan maraynay. 34 jawaabteedu waxaa weeyaan ba oo ah almacduuf walmacduuf caleyh. Su-aasha 35 jawaabteedu waxaa waaye jiin oo ah alistidraak. Su-aasha 36 jawaabteedu waxaa waaye alif oo ah waawun aw yaa-un. Su-aasha 37 jawaabteedu waxaa waaye jiin oo ah macduufan. Su-aasha 38 jawaabteedu waxaa waaye ba oo ah macnawiyan. Su-aasha 39 jawaabteedu waxaa weeyaan ba oo ah lafdiyan. Su-aasha 40 jawaabteedu waxaa waaye khaalid waa micno. حضر المدير وخالد إمامه. البدل في هذه الجملة يكون بدل جملة كجر محاوى خالد ومحا لقى بدلي المدير لقى بدله. qaybta ugu dambeysa ardayay isla soo gaarnay. qaybta ugu dambeyso waa isku aadi. waxaa noo qoran kelimada koowaad inoo qoran waxaa waaye 41 kalimatu yudaqar macnaaha. kelimadan yudaqar la dhahayo macnaheeda maxaa waaye? jawaabteeda waxaa waaye yaktazin aa ku aadan micnaha. 42 maa tushaddidu bihi almar'atu wasduhaa tusamaa. waxaa lagu magacaabaa annibaaq lagu magacaabaa. waa bahalka oo habeenka ee dhexda ay ku xirtaan dhabarka. 43 waxaa waaye kaysun min jaldin yuudacu fiihi azaad ilmusaafir yusamaa. jawaabteeda waxay noqonaya waxaa lagu magacaabaa almiswad aa lagu magacaabaa. su-aasha 43 biaxshaa'ihaa maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa albaabin aa laga wadaa gudaha. su-aasha 45 haddii ari uu madaxiisa ku garaaco ari kale waxaa lagu magacaabaa arinkaasi annadxu waa micno hirdin. su-aasha 46 cumar faarax uu wax ka sheegay asagoo maqan xumaanuna ku sheegay haddana qoloqaas waxaa loo yaqaanaa almuqtaab waa micnahan. su-aasha 47 dadka oo micnaha kuwa oo gacmahooda dadka hoos dhigaya iyagoo furan yaa si oo micnaha wax un lagu sadaqaysto waxaa lagu magacaaba dadkaasi almustawalluun waa micnaha dadka toogsada. su-aasha 48 waxaa weeyaan khaalid waa arday wuxuu dhumiyey waxaa waaye ma uusan dayacin kutubkiisa iyo kutubka saaxiibadiisba. sidoo kale been qof uma sheegin. caadadani waxay caadeen u tahay al-amaana waa amaano. su-aasha kale 49 maxamed waa arday wuxuu ka sheeganayaa xanuun oo lafaha dhabarka ah markii uu wax badan wax aqriyay. waxaa lagu magacaabaa marka meesha oo xanuunayso waxaa lagu magacaabaa 48 waxaa weeyaan 49 aan dhehe waxaa lagu magacaabaa alcumuud alfaqriy waa laf dhabarta. su-aasha ugu dambeyso aabayaasheena kuwaasoo hormareen haddana dhinteen kumanaan sano ka hor tusaale ahaan waxaa lagu magacaabaa assaabiquun. arday waxaan filayaa inaad garateen
insha Allah asxaabtiina lasii wadaaga. Channelkan ayaa la ilaawin in subscribe la dhaho oo like la saaro si oo micnaha dad badan u gaaro. Waa ku mahadsantahay qof walbo daawashadaada. Mahadsanidin.